hadda khadka waxaa si toos ah ugu jira wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Somaliland mudane Saciid Sulub saacad wasiir ku soo dhawow waraysigan gaarka telefishinka on cable waxaad ka mid tahay guddiga Somaliland u matalaya wada hadalka halkee bay wax marayaan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش احمد وحوي ذلك القراءة قدي قدي ها قدي فرسمو اما تكنيشنسكا صدح عشان وحودني صدح عشان وحودنينا هاو لحق ضبا هي ها جنبه وحكت عوي لي قدي دي مع صوماليا واي guddigaas oo u muuqatay inaanay guddi mandate haysata ahayn ee guddi iska sheekeynaysa wax kalsooniyana nafteeda ku qabin marka annaga mandate ilaanu haysanaanu goobta la fadhinay wixii qodobada soo qaadaba inaanu ka gaari karno go'aan ayagu wax walba waxayna lahaayeen ma ogin waruma hayno aan la tashano wasiirka ku shaqaalaha ama madaxweynaha ama waxaan kaasa niman aad prepare ahayn oo soo diyaar garoobay bay ahaayeen qodobooyinkii laga wada hadlayay ahaa maalinkan maanta heshiisyadii labada madaxweyne go'aamiyeen iyo dhexdhexaadka madaxweynayaasha dhexdhexaadka ay go'aamiyeen heshiisyadii hore in la fuliyo ayay aada uga warwareegeen ay ka mid tahay inaan la siyaasadayn mucaawanadii bay siyaasadaynayaan oo ay ku xirayaan inay dee sinaka ayaga aynu maro oo aanaynu inaku dowlad ahayn wax fara badan caynkaasay sameeyeen marka adigu maanta finally caawa lixdii oo rubcda ayaa markii ay diideen arrimihii oo dhan warwareeg ka dhigeen ayaanu ku nagay jeerkii Ethiopia jeerkii Djibouti wasiirka khaarijiga Djibouti nimankan diyaar ma aha mar haddaan diyaar ahayna hadalkii marka intaas ku ekaanaya waxay soo diyaargarooban baan sugeeman sidaasaan shirkii kaga baxnay oo aan kaga tagnay waxyaabo kale oo qeyr macquul ah oo odhanaya labada shacab iyo labada dad aan isu furro ayay soo jeediyeen taana waxaan ku nidhi ninka siyaasiyiinta iyo dadkan shacabka caadiga walba oo isu socdaay siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliland ka soo jeeda dowladda heshiinayna koon heshiin isma furayno waxba isma furayno marka adigu hawsha halkaas ay maraysaa. saacad wasiir waxa wararku ay sheegayaan in la isku mari waayay in Soomaaliya ay ogolaatay in wax laga qabto arrimaha mucaawinooyinka oo ay taa ogolaadeen idinkuna aad diidantihiin arrimihii dhaxgalka arrinta maxaa ka jira waxa ka jira mucaawanadana may ogolaan waxaanu ku nidhi mucaawanada way naga dhaxaysaa aynu goobjoog ka noqono wixii layna siinayo goobjoog ka noqon maysaana annaka loo dhiibaya waxaan idin garanana waa wasaaradda maaliyadda lagala xidhiidhaya baa marka alla waxba idinla xidhiidhi mayno idinka oo waxba idinka sugumayno ku nidhayo journalistkaynu wada tegaynaa ayagaa diiday tan isdhexgalkana waxaan ku nidhi dee laba dal oo col aan weli heshiinin isma dhexgalaane horta aan heshiino oo aynu qodobadan iyo waxyaaba fara badan oo hor yaalla markaynu ka heshiino ayaa la isdhexgeli isdhexgalka dadka caadigiina wuu socdaa oo aad waad ka warhaysaa wariyahaan isdhexgalka siyaasiyiinta iyo dadka khalkhal gelinaya Somaliland iyo dadka xilalka haya ee sheeganaya inay xukumaan Hargeysa anaga Hargeysa noogu iman maayaan baan ku nidhi marka ma sidaas u doonayaan isdhexgal siyaasadeed in la sameeyo mise waxay ka hadlayaan arrimaha kale ee ijtimaaciga ma toos bay u yidhaahdeen wasiirada xilka haya iyo xildhibaanadu hay yimaadeen markii aan diidnay taana waxay yidhaahdeen qolooyinka sportska iyo qolada culturalka iyo qolooyin kale dabeedna waxaan ku nidhi wixii aan nabadgelyadayada iyo siyaasadayada faragelinayn ee imanaya dadka caadiga ah ee society-ga ama mujtamaca wixii imanaya iminkaba waa yimaadaan iyo baamushtarigu taa hadalkama taagna waa tahay wasiir ma jiraan qodobo aad aqbasheen oo laisla fahmay labada dhinacba oo iyaguna ay aqbaleen idinkuna aad aqbasheen ma jiraan waxaanu markii hore aqbalnay matalan mucaawanadoo kale isla aqbalnay mucaawanadoo kale inaan la siyaasadayn laakiin markaan detail u galnay siyaasad bay ka dhigeen waxaan annakana soo marin idiin iman maayaan bay nidhi waayahay marka qodob kale oo laisla fahmay haba yaraatee ma jira miyaa la odhan karaa qodob allahu taala cala sayidina maxamed qodob waxaan kuu sheego oo nimankaas wax walba way ka galgasheen
wax walba waxay yidhaahdeen matalan nabadgelyada iyo kala qaybqaybinta somaliland kala qaybinayaan iyo dhaqaalahay gelinayaan iyo dagaalada xuduuda ka wadaan waxaasaanu ka hadalnay maba ogin bay yidhaaheen nimankii loo soo diray wasiirada ahaa naloo soo diray waxaa maba ogin yani dawladdeedu waxay wadaba nimaan ka warhayn bay noqdeen iswaraysta baana ku nidhi marka imaka yaa idinku dhex jira dhinacyada waxaa la sheegaya in jabuuti ay isu jiidayso maxaa halkee looga dhaqaaqayaa ismariwaagan kolley madaxweynaha jabuuti wuxuu ku taliyey in wixii qodobada wixii la isla gartayna communique laga soo daayo shir dambana la qabto wakti dambe oo ilaa 2 wiil 3 wiil dambe la isu yimaado laakiin wax weli final ma aha marka miyay u muuqataa shirkaasi inuu burburay oo kala tegaysaan mise waa isku noqonaysaan wuxuu u badan yahay inaan isagu kala tegayno maxaa yeelay 3 cashe ee aan qoladaa wada joognay qola aan diyaar ahayn oo aan serious ahayn bay noolan muuqatay oo iska jecel oo sheegashada somaliland inay sheegtaan oo aan la gudagelin arrimaha inaga dhexeeya aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee somaliland siciid sulub maxamed hadda khadka waxaa si toosa ugu jira wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee somaliland mudane siciid sulub sacaad wasiir kusoo dhawow waraysigan gaarka telefishinka hon cable waxaad ka mid tahay guddiga somaliland u matalaya wadahadalka halkee bay wax marayaan bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meesha wax marayaan waxa weeye meel gabagaba ah guddiga iyo labadiidii guddi ahaa guddi farsamo ama technicianska 3 cashaan wax wadnay 3 cashaan wax wadnayna hawl 6 qodob baa ayaa ahaa ajendaho waxay ka socon weyday guddigii dhinaca soomaaliya way guddigaas oo u muuqatay inaanay guddi mandate haysata ahayn ee guddi iska sheekeynaysa wax kalsooniyaan aan nafteeda ku qabin marka annaga mandate ila aanu haysanaanu goobta la fadhinay wixii qodobe la soo qaadaba inaanu ka gaari karno go-aan ayagu wax walba waxayna lahaayeen ma ogin waruma hayno aanu la tashanno wasiirka ku shaqa lahaa ama madaxweyneha ama waxaan kaasa niman aada ugu prepared ahayn oo soo diyaar garoobin bay ahaayeen qodobooyinkii laga wada hadlayay ahaa maalinkan maanta heshiisyadii labada madaxweyne go-aamiyeen iyo dhexdhexaadka madaxweyneyaasha dhexdhexaadka ay go-aamiyeen heshiisyadii hore in la fuliyo ayay aada uga warwareegeen ay ka mid tahay inaan la siyaasadayn mucaawanadii bay siyaasadaynayaan oo ay ku xidhayaan inay dee sinaka ayaga aynu maro oo aanaynu inaku dawlad ahayn wax fara badan caynkaasay sameeyeen marka adigu maanta finally caawa lixdii oo rubcda ayaa markii ay diideen arrimihii oo dhan warwareeg ka dhigeen ayaanu ku nagay jeerkii ethiopia jeerkii jabuuti wasiirka khaarijiga ee jabuuti nimankana diyaar ma aha mar haddaana diyaar ahayna hadalkii maka intaasu ku ekaanaya waxay soo diyaargarooban baanu sugayman sidaasaan shirkii kaga baxnay oo aan kaga tagnay waxyaabo kale oo kayra macquul ah oo odhanaya labada shacab iyo labada dad aan isu furro ayay soo jeediyeen taana waxaanu ku nidhi ninka siyaasiyiinta iyo dadkan shacabka caadigaa walba way isu socdaaye siyaasiyiinta iyo dadka somaliland kasoo horjeeda mayna heshiino inakoona heshiin isma furayno waxba isma furayno marka adigu hawsha halkaasay maraysaa sacaadatu wasiir waxaa wararku ay sheegayaan in la isku mari waayey in soomaaliya ay ogolaatay in wax laga qabto arrimaha mucaawinooyinka oo ay taa ogolaadeen idinkuna aad diidan tihiin arrimihii isdhexgalka arrintaa maxaa ka jira waxaa ka jira ta mucaawanadana may ogolaan waxaanu ku nidhi mucaawanada way naga dhexaysaa aynu goobjoog ka noqonno wixii layna siinayo goobjoog ka noqon maysaana annaka naloo dhiibaya waxaan idiin garanana waa wasaaradda maaliyadda nagala xidhiidhaya baa layidhi marka annaka waxba idinla xidhiidhi mayno idinka oo waxba idinka sugi mayno ku nidhayo donaliskaynu wada tegaynaa ayagaa diiday taa tan isdhexgalkana waxaan ku nidhi dee laba dal oo col aan weli heshiinin isma dhexgalaane horta aan heshiino oo aynu qodobadan iyo waxyaaba fara badan oo ina hor yaalla markaynu ka heshiino ayaa la isdhexgeli isdhexgalka dadka caadigiina wuu socdaa oo adba waad ka warhaysaa wariye ahaan ee isdhexgalka siyaasiyiinta iyo dadka khalkhal gelinaya somaliland
iyo dadka xilalka haya ee sheeganaya inay xukumaan Hargeysa anaga Hargeysa noogu iman maayaan baan ku niri marka ma sidaas u doonayaan isdhexgal siyaasadeed in la sameeyo mise waxay ka hadlayaan arrimaha kale ee ijtimaaciga ma toos bay u yidhaahdeen wasiirada xilka haya iyo xildhibaanadu hay yimaadeen markii aan diidnay taana waxay yidhaahdeen qolooyinka sportska iyo qolada culturalka iyo qolooyin kale dabeedna waxaan ku nidhi wixii aan nabadgelyadayada iyo siyaasadayada faragelinayn ee imanaya dadka caadiga ah ee society-ga ama mujtamaca wixii imanaya iminkaba waa yimaadaan iyo baamushtarigu taa hadal kama taagna waa tahay wasiir ma jiraan qodobo aad aqbasheen oo laisla fahmay labada dhinacba oo iyaguna ay aqbaleen idinkuna aad aqbasheen ma jiraan waxaanu markii hore aqbalnay matalan mucaawanadoo kale isla aqbalnay mucaawanadoo kale inaan la siyaasadayn laakiin markaan detail u galnay siyaasad bay ka dhigeen waxaan annakana soo marin idiin iman maayaan bay nidhi waayahay marka qodob kale oo laisla fahmay haba yaraatee ma jira miyaa la odhan karaa qodob allahu taala cala sayidina maxamed qodob waxaan kuu sheego oo nimankaas wax walba way ka galgasheen wax walba waxay yidhaahdeen matalan nabadgelyada iyo kala qaybqaybinta somaliland kala qaybinayaan iyo dhaqaalahay gelinayaan iyo dagaalada xuduudaha ka wadaan waxaasaanu ka hadalnay maba ogin bay yidhaaheen nimankii loo soo diray wasiirada ahaa naloo soo diray waxaa maba ogin yani dawladdeedu waxay wadaba nimaan ka warhayn bay noqdeen iswaraysta baana ku nidhi marka imaka yaa idinku dhex jira dhinacyada waxaa la sheegaya in Djibouti ay isu jiidayso maxaa halkee looga dhaqaaqayaa ismariwaagan kolley madaxweynaha Djibouti wuxuu ku taliyey in wixii qodobada wixii la isla gartayna communique laga soo daayo shir dambana la qabto waqti dambe oo ilaa 2-3 wada dambe la isu yimaado laakiin wax weli final ma aha marka miyay u muuqataa shirkaasi inuu burburay oo kala tegaysaan mise waa isku noqonaysaan wuxuu u badan yahay inaan isagu kala tegayno maxaa yeelay 3 casho ee aan qoladaa wada joognay qola aan diyaar ahayn oo aan serious ahayn bay noolan muuqatay oo iska jecel oo sheegashada Soomaaliland inay sheegtaan oo aan la gudagelin arrimaha inaga dhaxeeya aad iyo aad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Somaliland Siciid Sulub Maxamed hadda khadka waxaa si toos ah ugu jira wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Somaliland mudane Siciid Sulub saacad wasiir ku soo dhawow waraysigan gaarka telefishinka Hon Cable waxaad ka mid tahay guddiga Somaliland u matalaya wada hadalka halkee bay wax marayaan bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meesha wax marayaan waxa weeye meel gabagaba ah guddiga iyo labadiidii guddi ahaa guddi farsamo ama technicianska 3 cashaan wax wadnay 3 cashaan wax wadnayna hawl 6 qodob ayaa ahaa ajendihii waxay ka socon weyday guddigii dhinaca Soomaaliya way guddigaas oo u muuqatay inaanay guddi mandate haysata ahayn ee guddi iska sheekeynaysa wax kalsooniyaan aan nafteeda ku qabin marka annaga mandate ila aanu haysanaanu goobta la fadhinay wixii qodobeeda soo qaadaba inaanu ka gaari karno go-aan ayagu wax walba waxayna lahaayeen ma ogin waruma hayno aanu la tashanno wasiirka ku shaqo lahaa ama madaxweynaha ama waxaan kaasa niman aad u prepared ahayn oo soo diyaar garoobay bay ahaayeen qodobooyinkii laga wada hadlayay ahaa maalinkan maanta heshiisyadii labada madaxweyne go-aamiyeen iyo dhexdhexaadka madaxweynayaasha dhexdhexaadka ay go-aamiyeen heshiisyadii hore in la fuliyo ayay aada uga warwareegeen ay ka mid tahay inaan la siyaasadayn mucaawanadii bay siyaasadaynayaan oo ay ku xidhayaan inay dee sinaka ayaga aynu maro oo aanaynu inaku dawlad ahayn wax fara badan caynkaasay sameeyeen marka adigu maanta finally caawa lixdii oo rubcda ayaa markii ay diideen arrimihii oo dhan warwareeg ka dhigeen ayaanu ku nagay jeerkii Ethiopia jeerkii Djibouti wasiirka khaarijiga Djibouti nimankan diyaar ma aha mar haddaan diyaar ahayna hadalkii marka intaas ku ekaanaya waxay soo diyaargarooban baan sugeeman sidaasaan shirkii kaga baxnay oo aan kaga tagnay waxyaabo kale oo qeyr macquul ah oo odhanaya labada shacab iyo labada dad aan isu furro ayay soo jeediyeen
taana waxaan ku nidhi ninka siyaasiyiinta iyo dadkan shacabka caadiga walba way isu socdaaye siyaasiyiinta iyo dadka somaliland kasoo horjeeda mayna heshiino inakoon heshiin isma furayno waxba isma furayno marka adigu hawsha halkaasay maraysaa. sacaadatu wasiir waxaa wararku ay sheegayaan in la isku mari waayey in Soomaaliya ay ogolaatay in wax laga qabto arrimaha mucaawinooyinka oo ay taa ogolaadeen idinkuna aad diidan tihiin arrimihii dhaxgalka arrinta maxaa ka jira? waxaa ka jira mucaawinadana may ogolaan waxaanu ku nidhi mucaawinada way naga dhexaysaa aynu goobjoog ka noqono wixii layna siinayo goobjoog ka noqon maysaana annaka naloo dhiibaya waxaan idiin garanana waa wasaaradda maaliyadda nagala xidhiidhaya baa layidhi marka annaka waxba idinla xidhiidhi mayno idinka oo waxba idinka sugi mayno ku nidhayo donaliskaynu wada tegaynaa ayagaa diiday taa tan isdhexgalkana waxaan ku nidhi dee laba dal oo col aan weli heshiinin isma dhexgalaane horta aan heshiino oo aynu qodobadan iyo waxyaaba fara badan oo hor yaalla markaynu ka heshiino ayaa la isdhexgeli isdhexgalka dadka caadigiina wuu socdaa oo aad waad ka warhaysaa wari ahaan ee isdhexgalka siyaasiyiinta iyo dadka khalkhal gelinaya somaliland iyo dadka xilalka haya ee sheeganaya inay xukumaan Hargeysa annaga Hargeysa noogu iman maayaan baan ku nidhi. marka ma sidaas u doonayaan isdhexgal siyaasadeed in la sameeyo mise waxay ka hadlayaan arrimaha kale ee ijtimaaciga ma toos bay u yidhaahdeen wasiirada xilka haya iyo xildhibaanadu hay yimaadeen markii aan diidnay taana waxay yidhaahdeen qolooyinka sportska iyo qolada culturalka iyo qolooyin kale dabeedna waxaan ku nidhi wixii aan nabadgelyadayada iyo siyaasadayada faragelinayn ee imanaya dadka caadiga ah ee society-ga ama mujtamaca wixii imanaya iminkaba waa yimaadaan iyo baac mushtarigu taa hadal kama taagna. waa tahay wasiir ma jiraan qodobo aad aqbasheen oo laisla fahmay labada dhinacba oo iyaguna ay aqbaleen idinkuna aad aqbasheen ma jiraan? waxaanu markii hore aqbalnay matalan mucaawanadoo kale isla aqbalnay mucaawanadoo kale inaan la siyaasadayn laakiin markaan detail u galnay siyaasad bay ka dhigeen waxaan annakana soo marin idiin iman maayaan bay nidhi. waayahay marka qodob kale oo laisla fahmay haba yaraatee ma jira miyaa la odhan karaa? qodob allahu taala cala sayidina maxamed qodob waxaan kuu sheego oo nimankaas wax walba way ka galgasheen wax walba waxay yidhaahdeen matalan nabadgelyada iyo kala qaybqaybinta somaliland kala qaybinayaan iyo dhaqaalahay gelinayaan iyo dagaalada xuduudaha ka wadaan waxaasaanu ka hadalnay maba ogin bay yidhaaheen nimankii loo soo diray wasiirada ahaa naloo soo diray waxaa maba ogin yani dawladdeedu waxay wadaba nimaan ka warhayn bay noqdeen iswaraysta baana ku nidhi. marka imaka yaa idinku dhex jira dhinacyada waxaa la sheegaya in Djibouti ay isu jiidayso maxaa halkee looga dhaqaaqayaa ismariwaagan? kolley madaxweynaha Djibouti wuxuu ku taliyey in wixii qodobada wixii la isla gartayna communique laga soo daayo shir dambana la qabto waqti dambe oo ilaa 2-3 dambe la isu yimaado laakiin wax weli final ma aha. marka miyay u muuqataa shirkaasi inuu burburay oo aad kala tegaysaan mise waa isku noqonaysaan? wuxuu u badan yahay inaan isagu kala tegayno maxaa yeelay 3 cashe ee aan qoladaa wada joognay qolo aan diyaar ahayn oo aan serious ahayn bay noolan muuqatay oo iska jecel oo sheegashada Soomaaliland inay sheegtaan oo aan la gudagelin arrimaha inaga dhexeeya. aad iyo aad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Somaliland Siciid Sulub Maxamed. hadda khadka waxaa si toos ah ugu jira wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Somaliland mudane Siciid Sulub. sacaadatu wasiir ku soo dhawow waraysigan gaarka telefishinka Hon Cable waxaad ka mid tahay guddiga Somaliland u matalaya wada hadalka halkee bay wax marayaan? bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. meesha wax marayaan waxa weeye meel gabagaba ah guddiga labadiidii guddi ahaa guddi farsamo ama technicianska 3 cashaan wax wadnay 3 cashaan wax wadnayna hawl 6 qodob ayaa ahaa ajendihii waxay ka socon weyday guddigii dhinaca Soomaaliya waay guddigaas oo u muuqatay inaanay guddi mandate haysata ahayn ee guddi iska sheekeynaysa wax kalsooniyana nafteeda ku qabin marka annaga mandate ila aanu haysanaano goobta la fadhinay wixii qodobada soo qaadaba inaanu ka gaari karno go'aan ayagu wax walba waxay lahaayeen ma ogin waruma hayno aan la tashano wasiirka ku shaqo lahaa ama madaxweynaha ama waxaan kaasa
niman aada u berberid ahayn oo soo diyaar garoobin bay ahaayeen qodobooyinkii laga wada hadlayay ahaa maalinkan maanta heshiisyadii labada madaxweyne go-aamiyeen iyo dhexdhexaadka madaxweyneyaasha dhexdhexaadka ay go-aamiyeen heshiisyadii hore in la fuliyo ayay aada uga warwareegeen ay ka mid tahay inaan la siyaasadayn mucaawanadii bay siyaasadaynayaan oo ay ku xidhayaan inay dee sinaka iyaga aynu maro oo aanaynu inaku dawlad ahayn wax fara badan caynkaasay sameeyeen marka adigu maanta finally caawa lixdii oo rubcda ayaa markii ay diideen arrimihii oo dhan warwareeg ka dhigeen ayaanu ku nagay jeerkii Ethiopia jeerkii Djibouti wasiirka khaarijiga Djibouti nimankan diyaar ma aha mar haddaan diyaar ahayna hadalkii marka intaas ku ekaanaya waxay soo diyaargarooban baan sugeeman sidaasaan shirkii kaga baxnay oo aan kaga tagnay waxyaabo kale oo qeyr macquul ah oo odhanaya labada shacab iyo labada dad aan isu furro ayay soo jeediyeen taana waxaan ku nidhi ninka siyaasiyiinta iyo dadkan shacabka caadiga walba way isu socdaay siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliland ka soo jeeda dowladda heshiin isma furayno waxba isma furayno marka adigu hawsha halkaasay maraysaa sacaad wasiir waxa wararku ay sheegayaan in la isku mari waayay in Soomaaliya ay ogolaatay in wax laga qabto arrimaha mucaawinooyinka oo ay taa ogolaadeen idinkuna aad diidantihiin arrimihii dhaxgalka arrinta maxaa ka jira waxa ka jira mucaawanadana may ogolaan waxaanu ku nidhi mucaawanada way naga dhaxaysaa aynu goobjoog ka noqono wixii layna siinayo goobjoog ka noqon maysaana annaka naloo dhiibaya waxaan idiin garanana waa wasaaradda maaliyadda nagala xidhiidhaya baa layidhi marka alla waxba idinla xidhiidhi mayno idinka oo waxba idinka sugi mayno ku nidhayo journalistkaynu wada tegaynaa ayagaa diiday tan isdhexgalkana waxaan ku nidhi dee laba dal oo col aan weli heshiinin isma dhexgalaane horta aan heshiino oo aynu qodobadan iyo waxyaaba fara badan oo hor yaalla markaynu ka heshiino ayaa la isdhexgeli isdhexgalka dadka caadigiina wuu socdaa oo aad waad ka warhaysaa wariyahaan isdhexgalka siyaasiyiinta iyo dadka khalkhal gelinaya Somaliland iyo dadka xilalka haya ee sheeganaya inay xukumaan Hargeysa anaga Hargeysa noogu iman maayaan baan ku nidhi marka ma sidaas u doonayaan isdhexgal siyaasadeed in la sameeyo mise waxay ka hadlayaan arrimaha kale ee ijtimaaciga ma toos bay u yidhaahdeen wasiirada xilka haya iyo xildhibaanadu hay yimaadeen markii aan diidnay taana waxay yidhaahdeen qolooyinka sportska iyo qolada culturalka iyo qolooyin kale dabeedna waxaan ku nidhi wixii aan nabadgelyadayada iyo siyaasadayada faragelinayn ee imanaya dadka caadiga ah ee society-ga ama mujtamaca wixii imanaya iminkaba waa yimaadaan iyo baamushtarigu taa hadal kama taagna waa tahay wasiir ma jiraan qodobo aad aqbasheen oo laisla fahmay labada dhinacba oo iyaguna ay aqbaleen idinkuna aad aqbasheen ma jiraan waxaanu markii hore aqbalnay matalan mucaawanadoo kale isla aqbalnay mucaawanadoo kale inaan la siyaasadayn laakiin markaan detail u galnay siyaasad bay ka dhigeen waxaan annakana soo marin idiin iman maayaan bay nidhi waayahay marka qodob kale oo laisla fahmay haba yaraatee ma jira miyaa la odhan karaa qodob allahu taala cala sayidina maxamed qodob waxaan kuu sheego oo nimankaas wax walba way ka galgasheen wax walba waxay yidhaahdeen matalan nabadgelyada iyo kala qaybqaybinta Somaliland kala qaybinayaan iyo dhaqaalaha ay gelinayaan iyo dagaalada xidhiidha ka wadaan waxaasaan ka hadalay maba ogin bay yidhaaheen nimankii loo soo diray wasiirada ahaa naloo soo diray waxaa maba ogin yani dawladdeedu waxay wadaba nimaan ka warhayn bay noqdeen iswaraysta baana ku nidhi marka imaka yaa idinku dhex jira dhinacyada waxaa la sheegaya in Djibouti ay isu jiidayso maxaa halkee looga dhaqaaqayaa ismariwaagan kolley madaxweynaha Djibouti wuxuu ku taliyey in wixii qodobada wixii la isla gartayna communique laga soo daayo shir dambana la qabto waqti dambe oo ilaa 2-3 dambe la isu yimaado laakiin wax weli final ma aha marka miyay u muuqataa shirkaasi inuu burburay oo kala tegaysaan mise waa isku noqonaysaan wuxuu u badan yahay inaan isagu kala tegayno maxaa yeelay 3 casho ee aan qoladaa wada joognay qolo aan diyaar ahayn oo aan serious ahayn bay noolan muuqatay oo iska jecel oo sheegashada Somaliland inay sheegtaan oo aan la gudagelin arrimaha inaga dhaxeeya aad iyo aad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Somaliland Siciid Sulub Maxamed.